shirkii ka socday degmada Maxaaseed oo shalay oo taariikhda 25 bisha 10aad 2022 shirkaas oo ujeedadiisu ahaa in lagu wada hadlo amniga deegaanadii dib loogu xoreeyay cadawga Soomaaliyeed ee argixisada al-shabaab iyo sida arrimaha bulshada loogu horumarin lahaa shirkaas oo socday muddo 2 maalmood ah sida loo wada socotaan shalay waxaan idla wadaagno warmartiyeedka bilowga ahay maantana waxaan rabnaa inaan idla wadaagno dikreeto ku soo baxday xeer madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle taas oo guddigii shalay aan baahinay iyo guddi kale oo asagana loogu talagalay guddigaas oo ah inay dib u habeen iyo maaragtay agoontii dib u xoreynta ku dhimatay ku shahiiday ragii ku shahiiday ilmahoodii iyo in ciidamada dib u xoreynta ay shaqo badan ay ku qabtaan guddi amni ah iyo guddi dhaqaale waxaan rabaa markaa inaan idla wadaago guddiga dhaqaalaha inaan hortiina ka akhriyo warqadda madaxweynaha wareegta madaxweyne ku-xigeen ku dhammaan mas'uuliyiinta hoos ku xusan ujeedda magacaabis guddiga taakuleynta dhaqaalaha ee dib u xoreynta gobolka Hiiraan anigoo tixraacay shirkii amniga ee ka dhacay degmada Maxaaseed ee gobolka Hiiraan ku taariikhaysanaa 25 bishii 10aad 2022 shirkaas oo ka soo qayb galeen xildhibaanada heer federaal heer dowlad Hirshabelle saraakiil ciidan maamulka gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada laguna la fagoray dhammaan xaaladaha amniga ee gobolka Hiiraan waxa lagu magacaabay guddi dhaqaale kaas oo uu hogaaminayo gudoomiye Cali Jeeti Cismaan xildhibaan Cabdinaasir Xaaji Sharwac xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Cismaan iyo Cabdirasaaq Cabdullaahi Ciid xildhibaan iyo Ibraahim Xuseen Yuusuf xubnaas shanta ah waxay aruurin doonaa taakuleyntii loogu talagalay dib u xoreynta deegaanka dal iyo dibadda waxa ay wixii naga soo gaara ah sidoo kale madaxweynaha wuxuu magacaabay guddigaas oo ah guddiga amniga iyo kormeerka ciidamada xoreynta gobolka Hiiraan waxaan rabaa asagana inaan idinka hor akhriyo ku dhammaan mas'uuliyiinta hoos ku xusan ujeedda magacaabis guddiga amniga iyo kormeerka ciidanka xoreynta gobolka Hiiraan anigoo tixraacay shirka amniga ee ka dhacay degmada Maxaaseed ee gobolka Hiiraan ku taariikhaysanaa 25 bishii 10aad 2022 shirkaas oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada heer federaal iyo heer dowlad Hirshabelle saraakiil ciidan maamulka gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada laguna la fagoray dhammaan xaaladaha amniga ee gobolka Hiiraan wada tashi dheer kadib waxaan magacaabay guddiga hoos ku xusan General Tawane Axmed Gurey gudoomiyaha guddiga xildhibaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale xildhibaan Guhaad Cabdulle Jamcaale xildhibaan Cabduqaadir Maxamed Abubakar Ducaale Aadan Cabdi iyo Umar Aadan Ibraahim guddigaas 7 ahna oo guddiga amniga iyo kormeerka ciidamada dib u xoreynta deegaanka